Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka hadlayay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay Golaha Ammaanka in cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado. Khudbad uu ka jeediyay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayuu diiradda ku saaray dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarada dowladda gaartay. Wasiir Cawad oo shirka ku matalayay Madaxweyne Farmaajo isla markaana khudbadiisa ka jeediyay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dowladda Soomaaliya lagu taageero dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah, isagoo tilmaamay in si argagixisada looga adkaado loo baahan yahay in laga qaado cunaqabataynta hubka. Sidoo kale Wasiir Cawad ayaa sheegay in dhalinyarada aanay xilligan ugu biirin argagixisada sidii hore. Sidoo kale waxa uu xusay in dhalinyaro badan ka faa'iideysteen cafiskii dowladda oo ay isa soo dhiibeen sida uu hadalka u dhigay. Khudbadiisa ayaa waxa uu sidoo kale kusoo hadal qaaday horumarada ay gaartay dowladda uu hogaaminayo Madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa sanadkii labaad oo xiriir ah waxa uu ka baaqanayaa shirka Golaha Ammaanka.